kulanti wacan daawadayaal meel kasta oo dunida dacaladeeda nagala socotaan ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelanayna Cabdirashiid Nuur Wacays oo ah markaasi gudoomiyaha gudida dhulka ee markaasi golaha deegaanka degmada Berbera oo nagula sugan studio-ga aan ku leenahay magaalada Hargeysa. Cabdirashiid waxa uu kamid ahaa markaasi xildhibaano ka mid tirsan golaha deegaanka oo dhaliilo soo jeediyay maayirka iyo ku-xigeenkiisa kuwaas oo ay ku eedeeyeen markaasi musuqmaasuq iyo sidoo kale inuu dan guud dadkii markaasi deganaa uu ka qaadayo aan ku soo dhaweeyay marka hore Cabdirashiid CBA aad iyo aad baad mahadsantahay Axmed Saki waan dhawahay walaalo waana idin siin doonaa information-ka insha Allah marka hore su'aashada koobaad aan doonayna ku weydiiyo shacabkuna doonayna fahmaan halku ka dhashay marka hore khilaafka idinka dhaxeeya idinka iyo mas'uuliyiinta sare ee marka maayirka uu kookiya runtii Axmed oo khilaafkan ka dhex qarxay ama eedan aan ku eedeynayno gudoomiyaha degmada Berbera wuxuu ka kacay runtii tudhaalo aan u turayno haddana xildhibaanadii hadlay shalay toole aan u turayno shacabka iyo dadka danyarta ah ee degmada Berbera dadkana soo doortay oo runtii waajibaad naga saaran yihiin inaan hantidooda u ilaalino maadaama nahay dad cod ku yimi oo la soo doortay inaan hantidooda sharaftooda iyo cisigooda iyo deganaashiyahooda baanu ilaalino ayuu ka yimi maayirko aanu kala hadalnay oo nidhi war ha laga daayo arrintaas ayay ka bilaabmatay xildhibaano ayaa hadlay 4 ah shalay toole oo anigu ka mid ahaa 4 xildhibaano waxay ka hadleen dulmiga iyo tacadiga ay ka mid tahay xaafadda dadka danyarta ee masaakiinta degan yihiin oo laga rarayo meesha oo laga barakicinayo dadkaas oo dad sooyaal laga soo rarayo in point-ka la fahmaa fiican dad kii deganaa sooyaal waa tii dhawaanta habshil iibsatay xaruntii sooyaal dad baa deganaayo hareeraheeda ama xayndaabka ku haystay meherado yaryar oo dukaamo ah dadkiibaa la soo raraya dadkana lagu replace gareynaya ama lagu barabixinaya arrinta weyn arrinta golaha deegaanka ay magaranaysaa xubnaha golaha deegaanka kamid ahi ay ka biyo diideen ay yidhaahdeen lama rarayo dadkii kale ayaa la doonaya meesha looga qaadamiya waxaa la doonayaa dadkan danyarta ee meesha degan xiraacbo in lagu bedelo dadkaa la soo rarayo ee dukaamada haystaa dadkaa laga soo rarayo sooyaalna dad ganacsataa bay ahaayeen runtii oo ganacsiyo yaryar ku haysta dadkana dad nolol raadisa weyaan meesha laga saarayo ee laga barakicinayo sooyaal dad meesha ku nool runtii duruufo aad kala duwan ku nool aad baad maasantay inteenan maayirko asaguna hadlay aynaan markaasi u iman qaar ka mid ah xildhibaanada markaasi idinkeed ka tirsan oo xubno ka mid ah idinka oo idinkeed eedeynaya waxay sheegeen mas'uuliyiin adigu aad ka mid tahay inaad booqateen halkii markaasi dadkan loo geynayay oo ah 24 guri ma jirto arrintaas Axmedow meesha waan tagnay waana soo eegnay meeshu waa meel magaalada ka baxsan oo magaalada duleedkeeda ah way jirtaa waan tagnay laakiin se muxuu yahay doodu maxay tahay doodu waxay tahay meesha la geeyay dadkan masaakiinta laga rarayo meesha magaalada ku dhow ee imkaaniyaadkii ama khayraadkii kala duwanaa iyo noloshii baahiya asaasiga ahaa ay uga dhow yihiin magaalada hadday tahay biyihii hadday tahay waxbarashadii hadday tahay noloshii kale in laga raro meel kale la geeyo fog meesha fog ha la geeyoba laakiin kud ka guuro qanjo guurayaan inta meeshan laga raro oo qolqol yar baa markii hore waa looga dhisayaa oo ay ku ganacsadaan halkan xiraabo laga rarayo la siinaya laakiin markii dambe waxay noqotay inaan waxba looga dhisayn oo meel ay qol ka dhistaan garanaysa la siiyo xagga la geenay inaan waxba looga dhisayn meel banaan la dejinayo marka arrintaas aanu ka biidiidnay oo uma qalanto dadkan uma qalanto in meesha la geeyo mid kamid ah xildhibaanadii hadlay waxa uu sheegay inaad adigu markii hore ku qanacday goobta la geenayo oo aad runtii sheegtay in biyo leedahay leerka loo sameynayo dhammaan aad ku wada qanacday ma jirto arrintaas waan in ku sheegay Axmed aan kugu celiyay marka hore waan tagnay waanan isla eegnay meesha laakiin se waan in kule markii hore waxa la isku ogaayay wax looga dhiso qolaa looga dhiso oo dhisme looga dhiso xaggan xiraaboodna hal qol ay ku ganacsadaan looga dhiso xaggan kalena looga dhiso guri ay deganaadaan marka taasaan meesha ka baxday markii dambe waxay noqotay in meel banaan laga raro meel banaan loo raro halkan xitaa qolka laga siinaya ay tahay meel banaan oo waxba ugu filnayn taasaan ka biidiiday markii dambe eedeymaha soo jeediseen waxa kamid ahaa Cabdirashiidow in maayirka iyo maayirka xigeenku aan idiga fasax qaadan iyagoo safar ku maqan maayirka xigeenku Hargeysa jooga uu jawaabay arrintaas labadooduba si wada jira bay ula hadleen warbaahinta iyagoo markaasi oo Addis Ababa ku maqan yahay maayirka waxay sheegeen in aydan idinku awood lahayn fasaxayna idinka ka dalbadaan aad iyo aad maasantay Axmedow waxa jira xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka oo la yiraahdo xeer 23 xeerkaasi wuxuu jideynayaa
qodobkiisa 43aad faqradiisa afraad waxay sheegaysaa halkan aan xeerkii ku haya waxay sheegaysaa in duqa iyo ku-xigeenkiisu marka ay baxayaan ay safar u baxayaan maayarka waan arkay jawaabtiisii marka wuxuu yidhi markan u baxayna shakhsi caadi ah haddii uu safar dibadda ugu baxo maayarka iyo maayar ku-xigeenku amaba safar ay u baxaan in ay fasax ka qaataan guddiga joogtada ah Axmed Sako waxa la isku yiraahdaa saddexda xubnood ee gudoomiyaasha guddi hoosaadyada golaha deegaanka iyo saddexda xubnood ee fulinta maayarka ku-xigeenka iyo xoghayaha lixdaas la isku yiraahdaa guddiga fulinta kamuu fasax qaadan isugu yeerin kalamo fasax oo ka qaatayna haba yaraatay ma jirto ee waxa uu ahaa maayarku awr dabar la'aan dhacay marka leedahay awr dabar la'aan uu dhacay waxay ka dhigan tahay macnaheedu waxa weey waan naga fasax qaadan wax fasax ma qaadan asaga doodiisu haday sax tahay miyay sax ahayn in maadaama fasax leeyahay isagu halku doono uu tagi karo oo maadaama uu xilliga shaqada ka nasanayo ma tagi karo Axmed Sako aan ku sax walaalo markuu maayarka kaliya la soo magacaabay maayarku yahay wax laga yaabaa inuu safaradiisa isaga baxo meeshtoona baxo laakiin waxa jira golo deegaan ayaa jira guddiyo u qaybsama guddiga fulintu waa guddiga ugu muhiimsan waa guddiga waxaan u jeedaa guddiga joogtada waa guddiga ugu muhiimsan waayo waa guddida shaqaynaya kalfadhi ilaa ka kalfadhi wixii ay garanaysaa ku yimaadama amni haatan wax kala haato waxa soo dhantay ka shaqeeyaan golaha u gudbiya inay ka fasax qaatana way ahayd Cabdirashiidow sharciyan la sharci baynu eegaynaa dad badan baa idigu eedeeyeen degdegisaan oo aad degdeg uga soo horjeedaan mas'uuliyiintii ama maayarkii ha noqday ama ku-xigeenkiisa dooda noocaas maxaad ka leedahay Axmed oo arinta haddaan ka jawaabo waxa weeyaan wax degdeg ma jiro wada shaqayn baa la isku hayaa golaha xubnaha iyaga shalay tola hadlay waxaan leenahay golaha ha shaqeeyo maayarkiina golihii inaanu shaqaynin buu doonaya waayo anagu kalfadhigii ugu dambeeyay kala haddaan tusaale ahaan ku soo qaato kalfadhigii ugu dambeeyay yeelanay waxaanu maayarkii u soo gudbinay inuu ajandaha ku daro oo laga doodo laga hadlo wax laga weydiiyo maayarka anigu waxaan gudoomiyaha guddida howlaha guud iyo jidadka ajandaha waxaan u soo jeediyay maayarku inuu ku daro oo laga doodo oo una taabsiyo tusoo taabsiyo inay noqoto hantida guurtada ah iyo tama guurtada ah iyo dhulka danta guuda ee uu leeyahay golaha deegaanka degmada Berberi maayarku ka galgashay lafdhuun gashay bay ku noqotay arintaa uu ka galgashay uu diiday inuu ajandaha ku daro saacad baan u diiday beenaal markhaatigiisu fogeeya way joogaan xubniga golaha deegaanka arintaa maadaama uu diidayna maayarku wada shaqayn ma doonayo wuxuu doonayaa one man show inuu keligii meesha ka shaqeeyo oo shaqado dhan hayo oo uu isagu noqdo guddiga fulinta oo guddiga joogtada ahayd uu isagu noqdo oo xubniga golaha deegaanka oo dhan hawshoodii umarorsado ayuu doonaya taasina midaan ku yeelna maaha waqtigeediina maaha waa la soo dhaafay waqtigu isagu booshaaqsan jiray meesha laakiin maanta niman shaqaynaya ayaa yimi oo shaqada garanaya way Cabdirashiid geesta kale de hadda muran weyn baa taagan laba qaybood baad noqoteen oo hadda wala kala doonayeen shacab kala deegaanka dad badan oo soo doortay baa idin sugaya in dadkii idin doortay si aad u qancisaan shaqadoodina ugu fulisaan maxay idga meel yaalaa runtii tan aan ku jirnaa Axmed Sako oo shaqada bulshada aan u soo shaqeynno bulshadiina soo dooratay ee codkana siisay iyagan u shaqeynayna iyagan had iyo jeer leena war ka daaya dadka dulmiga war ka daaya dadka wax istabamarinta war dadka si fiican ay ugu shaqeyno si wada jir ay ugu shaqeyno waxay arkaynaa goli deegaanka kala qaybiyay oo qaybin ku sameeyay maayarku kala qaybintaasna waa waxyaabaha aad iyo aad rogaadiya had iyo jeer maamulka iyo si dadka lagu shaqeyn lahaa way aad baad maasida Cabdirashiid sidoo kale iyaguna waxa ku sugan magaalada Berbera mas'uuliyiin ama xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo deegaanka u dhashay ma kulantay kuwa runtii aad iyo aad bay mahadsan xildhibaanada golaha wakiilada yimid gobolka saaxil guud ahaan 10 xildhibaan ee laga doortay degmada Berbera ama gobolka saaxil guud ahaan gobolka saaxil laga doortay waxay u yimaadeen xogaal noqoshada xaaladda dad iyo dunyo iyo xaaladda uu gobolku jiro iyo xaaladda crisis-ka degmada ka socotay taa dhulka xiraabooda oo kale runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa meelo kala duwan bay booqdeen oo jeelka iyo kamid yihiin caafimaad adigu ay kamid yihiin caafimaadka waxbarashada xiraabooda ma garanaysaa crisis ka jiraan dadka dan yarta gan yihiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaanan xaal ka siinayaa eed ay maanta u jeediyeen xildhibaanada golaha deegaanka saaxiibada iyo odayaashii la soo kalifay maanta ee shacabka soo hor fadhiistay ee maayarka difaacayay iyaga eedayn looma jeedinin laakiin maayarka isaga dhigayeen inay isaga dhigaana ma ahayn anigu waxaan u arkaa niman aan wax badan ogeyn oo lasoo khaldo lasoo majira habaabiyey way
cabdirashiid eedeynta dhanka musuqmaasuqa aad u jeediseen maayarka ee ay ka mid tahay runtii mashruuci projecti markaa hore loo yaqaanay engineer Yariso oo kale iyo sidoo kale markaasi halkan barakicinta oo aad leedahay dad deegaan baa haysa in ma haysataan cadeymo cadeynaya oo warbaahinta usoo bandhigi kartaan oo leedahay tahay qodobkaas cadeynaya musuqmaasuq sameeyay maayarka runtii waxaynu arkaynaa anigu systemkan ku dhex jirnaa Axmedow wax badan baan haynaa xir abood haddii aan ku noqdo halka musuqmaasuqa aan jeedinay inuu ku eedeynay maayarka iyo xubnaha kale ee la garanaysaa fulinta waxaan ku eedeynay 46 qol baa laga dhisay xir abood 46 ka 12 iyo 12 mooyaan 22 ka soo haray ay question mark saarantay calaamad su'aash oo leeyahay 22 ka qol meeshii la geenayo iyo cidii lunsanaysay ayaan u shako haynaa oo arkaynaa evidence farbadan evidence oo haynaa ninka midida daafkeeda haya gudoomiyaha waxaad ka wadaa maayarka ha way ma weydiiseen oo ma hordhigteen guryaha aad sheegaysay la dhisayo cidda uu doonayo markaa hore waxaan kugu xusay Axmedow in had iyo jeer uu ka meeraysto waxyaabahan soo bandhigno aan kala fadhido soo bandhigno ninkana waa nin madax adag oo jecelayn had iyo jeer waxyaabaha wixii shaqada ah ama ajandaha lagu daro ama laga doodo marka waa nin aan doodiisu cadeyn oo garanaysa fagaaraynta soo fadhiisto aan dadka la doodayn mid kale aqoon darro ayuu maanta ku eedeynay ku celcelinay cid aqoon darradu hayso inuu garanayna Axmedow maalmihii aanu sharaxnayn aanu xisbiga ka wada sharaxnayn waxa la sameeyay tasdiiqin baa la sameeyay qolada higher education-ku shahaadooyinkii tasdiiqinaysay dee waa la garanaya raggii fagaaraha keenay ee shahaadooyinkoodii soo bandhigay baan kamid ahaa anigu laakiin aqoon darradu sheegayo ninka aan standard 4 dugsi hoose gaarin inuu isaga yahay loo bariyay guddiga tacliinta sare anigu cadeyn uma hayna dabcan oo oran karmayno laakiin dabcan eedeyn bay noqonaysaa cabdirashiid gabagabadii madaxweynaha Soomaaliland Musabbix Cabdi Qudhigiisu la kulmay maanta maayaradu waxa uu sheegay in degdeg badan oo idigu jiro isagoo geesta kalena markaas sheegay inaan amar dambe mooyaan oo ku celiyo hadal hore oo wasiirka arrimaha gudaha wareegtay uu soo saaray oo ahayd barasaabada ilaa ay amraan ma fadhiisan kartaan iyada qudhigeeda dooda maxad ka leedahay Axmedow arintaasi waa runtii wax la yaabo weeyaan barasaabada aad sheegaysana waa dad la soo magacaabay oo nominate ah laakiin se xildhibaanada golaha deegaanku waa dad xasaanad leh dad la soo doortay dad cod shacabku yimid sida madaxweynuhu cod shacab ugu yimid waxa kale oo hore u aragnay in wasiirka arrimaha gudaha waraaq soo saaray warqadana sharci darraan u aragnaa guud ahaan golayaasha deegaanka dalkan marka aanu afkoodii ku hadlaya iyo golaha deegaanka degmada Berbera waa sharci darro maayarka hashirina hadii la leeyahay golayaasha deegaanka xildhibaanadii la soo doortay hadii la hashirina maxaa laga soo dooranayay maayarkii la soo magacaabo hore la soo magacaabi jiray bariye hore intaynaan gaarin multi party systemka ama habka axsaabta badan arintaas sharci darro aanu arkaa anigu way gabagabadii Cabdirashiidow waa kaas xaaladaasi aad bay murugsan tahay shacabkiina dabcan de waxa weeye iyagana waxay iska sugayaan shaqo maxaad xal u aragtaa gabagabadii horta Cabdi Axmed Saki runtii imika golaha deegaanka Berbera hadalkan ay hadleen ama khilaafkan ka dhex qarxay xubno golaha deegaanka kamid ah maayarka ma aha inaynu ridayno maayarka anagu sababta aan degdeg noogu jirin ma ku sheegaya inaan maayarka ridno iyo kala fadhi midna ma dalban laakiin waxaan isku haynaa maayarka si shacabka loogu shaqeyn lahaa sidii si togan oo positive loogu shaqeyn lahaa shacabka sidii si cad oo transparency loogu shaqeyn lahaa sidii ummadda loo soo hordhigi lahaa wixii looga shaqeeyay wixii loo qabtay maxaa qabiyoobay maxaa qabsoomay haddii aan wada shaqeyn la ogolayn muxuu golo deegaan ka jiraya oo laga yahay golo deegaan waa in la wada shaqeeyo waa in la isqanciyo waa in xildhibaanada golaha deegaanku marka ay wax weydiiyaan maayarka oo si kale uga jawaabo hilaab xume inuu wax qarsanayad mooda had iyo jeerna maayarku ma cadeeyo oo ma qeexo way aad baad u mahadsan tahay daawadayaal kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Nuur Wacays oo markaasi kamid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera oo markaasi khilaaf ballaaran hadda uu markaasi ka taagan yahay degmada Berbera iyadoo qaar kamid ah xildhibaanada uu kamid yahay Cabdirashiid ay eedamo u jeediyeen maayarka aad baad mahadsan tahay barnaamijka mid lamida ku kulmi doono waxaan geeyay sida iyo amaana Allah nabad geliyo